asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan jimco wanaagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena live transfer update waan kusoo qaadana sheekooyinka arrimaha xanta suuqa yurub ka jiraan fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar saaxiibada joogtada nagu xira muuqaalka noo sheergareeya waxaa mar koowaad ku bilaabanaa ciyaaraanka lagu magacaabo Lautaro Martinez ayaa mustaqbalkiisa ciyaarad u xaqiijiyay kooxda Inter Milan wuxuuna ka farxiyay taageerayaasha Nera Azzurri xilli uu sheegay Argentineska inuu sii joogayo dhankaasi dabcan garoonka San Siro waxaa jirta sheeko ku aadan baadigoob inay ugu jiraan kooxaha Chelsea iyo Spurs laakiin ninkan wuxuu leeyahay waxaa jirta dalabyo kala duwan iga soo gaareen qaar ka mid ah kooxaha Yurub ugu caansan balse ujeedkan leh waxay tahay ka dhawaajin Lautaro inaan sii joogo kooxda Inter Milan xilli ciyaareedka nagu soo foolay sida haatan shabakada La Gazzetta dello Sportivo iyo Fabrizio Romano ay soo daabacayaan sidoo kale sheekooyin kale transferka ka kooban soo qaadan karna waxaa qaybka weeraryahankii hore xulka horan iyo kooxda Liverpool Decoid ayaa si rasmi lagu dhiibay kooxda lagu magacaabo Edo Den Haag oo uu dabcan noqon doono tababaraha kooxda waxay kaga dhigantay Coid in markii ugu horeysa uu noqon doono macallin dhameystiran shaqadana wuxuu ka bilaabaa dabcan horyaalka heerka labaad ee Holland maadaama kooxda lagu magacaabo Edo Den Haag heerka labaad ay ka ciyaartay marka Coid waxaan leenahay kusoo dhawaa maamulka dhanka macalinimada iyo nasiib wacan ayaan ku rajeynaynaa saaxiibada qiimaha badan 24 saac ugu dambeysay transferka ciwaanada uu kulkul waxaa qaybka kooxda Real Madrid oo si rasmi u soo bandhigtay Antonio Rudiger waxayna si free ama bilaash kaga soo qaateen naadiga Chelsea Jarmalkan wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay ku biiritaanka kooxda Los Blancos qalinkan wuxuu ku digay 4 sano contract saa darteed waa official Rudiger wuxuu ku soo biiray Real Madrid sidoo kale tan waxaa leedahay welcome to Santiago Bernabeu sida haatan Madrid ay xaqiijisay sidoo kale ciwaanada suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka ah ninka lagu magacaabo saaxiibada qiimaha Alexander Lacazette ayaa la sheegay haatan wada xaajood rasmi inuu kula jiro kooxdiisa Olympique Lyon wuuna ku soo laabanaa sida uu xaqiijiyay madaxweynaha lagu magacaabo Jean-Michel Alois waa madaxweynaha koowaad ee kooxda Olympique Lyon Michel Alois wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsanahay ugu dambeyntii in Lacazette uu doorto ku soo laabashada kooxdeena xilli ciyaaraankan sanado kala duwan oo ka maqnay dhankaasi Arsenal uu joogay haatan qandaraaskiisa uu dhacay saa darteed marka Lacazette iyo kooxdiisa Olympique Lyon dib ayay u midoobi doonaan dhinaca kale Gennaro Gattuso si rasmi ah dabcan u noqday tababaraha koowaad ee kooxda Valencia wuxuu la gaaray contract ku eg June 2024 sidoo kalena wuxuu gaarsiin karaa qandaraaska June 2025 sidoo xaqiijiyay journalista canka Gianluca Di Marzio iyo shabakada Sky Sport Valencia mas'uuliyiintooda waxay isku raaceen Gennaro Gattuso inuu shakhsiga ku haboon ee kooxdan dib u soo celin kara awoodeeda Gattuso waxaa lagu xasuustaa shaqooyinkii quruxda badnaa ka qabtay AC Milan iyo Napoli saa darteed waxaa la rajeynayaa kooxda Valencia inuu soo kicin doono sidoo kale ciwaanada kale suuqa Yurub soo qaadan karna waxaa qaybka saaxiibada qiimaha badan ciyaaryahanka tayada wanaagsan ee talented-ka ayay gacanta ku soo dhigeen kooxda Bayer Leverkusen ee lagu magacaabo Adam Holosage oo xitaa qaar ka mid ah kooxaha English Premier League baadigoob ugu jiraan sida West Ham United saaxiibada qiimaha badan Holosage waxay ku soo qaateen kooxda Leverkusen qiimo lacageed oo gaaray 13 milyan oo euro wuxuuna ka tirsanaa kooxda Spartak Praha mustaqbalka hadii ay iibiyaan 30% lacag kasta ay ku iibiyaan kooxda Jarmalka weeraryahankan Jaga waxaa la siin doonaa kooxda Spartak Praha Holosage xitaa wuxuu iska digay dalab kaga imaada dhankaasi Sevilla oo si rasmi ayuu dabcan ugu biiray Leverkusen sidoo kale ciwaanada transferka jira rasmiga soo qaadan karna waxaa qayb ka ah kooxda Spurs xaqiijisay goolayaha Talyaaniga ninka lagu magacaabo Luigi Golini inay iska fasaxeen wuxuuna dib ugu laabtay kooxda kubadda cagta Atlanta Golini markuu imaanay kooxda Spurs xilli ciyaareedka hore waxaa laga qabay kalsooni ballaaran inuu goosha koowaad kala wareegi karo goolayaha dabcan lagu magacaabo Hugo Lloris balse taasi ma aysan dhicin ninkan wuxuu la qabsan waa Ingiriiska haddana Spurs way iska fasaxeen waxayna soo qaateen Fraser Forster oo si bilaash kaga imaada kooxda Southampton 2 sano contract qalin ku dugay dhinaca kale FC Bayern Munchen dhankooda xaqiijiyeen Ryan Gravenberch in Ajax ka soo qaateen wuxuu maray tijaabada caafimaad wiilkana maalmaha nagu soo foolay ayaa si rasmi loo soo bandhigi doonaa 5 sano contract uu qalin ku dugay Hollandeeskan qadka dhexe ka ciyaaro sidoo kale tan Ajax waxaa lagu wareejiyay 25 milyan oo euro mustaqbalka hadii ay Bayern dib u iibshaan ama ay dabcan koox kale ka gadaan ninka lagu magacaabo Ryan Gravenberch saaxiibada qiimada 7% lacag kasto lagu gado waxaa la siin doonaa kooxda Ajax sidoo kale sheekooyin kale transfer kuwa kulkul soo qaadan karna waxaa qaybka Kylian Mbappe ayaa u jawaabay shabakada lagu magacaabo Sport Bible taasoo soo daabacday Mbappe inuu la wareegay awoodda saldanada kooxda Paris Saint-Germain sidoo kale uu dalbaday in kooxda laga diro 14 shaqsi oo dabcan naadiga joogan kuwaas oo ugu saameyn badan Mauricio Pochettino macallinkooda kooxda iyo Neymar Jr Mbappe arrinkan uu ka aamusay waa inkastoo ciyaartoyda arrimaha gossipka aysan ka hadlin haddana Franciscan waa laga dabageeyay kadibna wuxuu ku dhahay shabakada Sport Bible sheekadan wax ka jira mal waa fake
Mbembe sidoo kale wuxuu warbaahinta ka dalbaday inay joojiyaan sheekooyinka been abuurka ah oo ay ka daabacayaan. Wuxuu leeyahay aniga iyo Paris Saint-Germain heshiisaan wada gaarnay 3 sano contract aan qalin ku dugay. sidoo kalena wuxuu leeyahay ciyaartooyda kooxda ayaan qayb ka ahay ee awoodda cid igu wareejisa ma lahan. Mbembe wuxuu beeniyay sheekooyinka la wada ku aadan in dabcan amar kastoo kooxda kasoo baxay asiga dhankiisa uu ka imaan doono. wuxuuna leeyahay Pochettino iyo Neymar saaxiibaan nahay awooddaasna dabcan ma lihi uu ka dhawaajiyay. saaxiibada qiimaha badan kadib markii Alvaro Morata tartankii xalay UEFA Nations League uu shabaqa gaaray wuxuu ka hadlay mustaqbalkiisa ciyaareed. wuxuu sheegay Juventus inaysan dabcan bixinin lacagaha dulta la gaaray 35 milyan oo euro Athletic Madrid ka rabto. sidaa darteed wuxuu leeyahay arrimahan waa ka aamusanahay oo hadda waxaan ku mashquulsanahay ka dhawaajiyay waajibaadka gudashada qaramada, laakiin waxaa jira sheegay dalabyo kala duwan oo soo gaaray. sidaa darteed wuxuu leeyahay waxaan jeclahay kubadda inaan ciyaaro sidoo kale tan aan sii joogo koox igu faraxsan. marka Morata wuxuu xaqiijiyay daawadayaasha qamad Juventus inaysan bixinin lacagaha ninkan dultaalo oo Athletic Madrid ay ku doonayso isagoo Juve amaah kula jooga, waxayna u badantahay xagaagan inuu isaga tagi doono marwada duqda. saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qaybka ah Divock Origi, asigana kooxda AC Milan tijaabada caafimaad uu u maray. saaxiibada qiimaha badan sidoo kale tan 4 sano contract ayuu qalin ku dugay. waxaa lagu wadaa maalmaha nagu soo fool kooxda Milan inay si rasmi u soo bandhigto Divock Origi, laakiin journalist caanka Fabrizio Romano wuxuu leeyahay tijaabada caafimaad wax yar ka dhiman oo la dhameystiri doono weekendiga nagu soo fool. isniintan waxay u badantahay Origi inay Milan soo bandhiga asigoo fanaanada Rossoneri sare u hayo 5 sano contractin qalin ku dugay, wuxuuna si bilaash kaga soo tagay kooxda Liverpool. dhinaca kale tan Milan waxay wada xaajood kula jirtaa Renato Sanchez wakiilkiisa Jorge Mendes oo ay doonayaan ciyaaraankan gacantina kusoo dhigaan tan iyo bishii Janaayo baadi goob ugu jireen. kooxda Lille waxay ku doonaysaa 40 milyan oo euro halka Milan ay kalsooni badan ku qabtay inay ku heli karaan 30 milyan oo euro sida shabakada Sempre Milan ee daabaceyso. sidoo kale sheekooyin kale ka kooban suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka ah saaxiibada qiimaha badan Javier Zanetti oo ah madaxweynaha ku-xigeenka kooxda Inter Milan ee xaqiijiyay naadigan wada xaajood toos inay kula jiraan Paulo Dybala kadib markii xulkiisa Argentina u ciyaaray tartankii finalism oo 3 gool ebar ka qaadan Italy. Dybala waxaa la sheegay London ayuu ku sugan yahay, wakiiladiisa asigana dabcan kulan waxaa la qaatay Javier Zanetti iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Inter Milan. sidoo kale tan wuxuu sheegay heshiiskan la dhameystiri doono maalmaha nagu soo fool. Zanetti wuxuu leeyahay Dybala waa superstar weyn oo gudaha Talyaaniga dabcan laga tixgeliyo, annagana yoolkeena wuxuu ka dhawaajiyay gacantina kusoo dhigno xilli Inter Milan ay ku qaadan karto ciyaaraankan si bilaash ah. sidoo kale sheekooyin kale transferka aan soo qaadan karno waxaa qaybka Luis Suarez ayaa ku dhow ku biiritaan kooxda Aston Villa. wuxuu ka qaadanaa 2 sano contract ah. heshiisku saxiixay wuxuu noqon doonaa mid ku eg June 2024 sida haatan uu soo daabacay journalista caanka lagu magacaabo Ekram Konor. sidoo kale tan waxaa la sheegay Suarez iyo Steven Gerrard ay ku heshiiyeen imaanshaha dhankaas iyo dabcan garoonka Villa Park. marka Villa Park waxaa ku midoobi doonaan labadii legend ee kooxda Liverpool u ciyaari jireen waa Steven Gerrard iyo Luis Suarez, iyadoo Suarez si bilaash uu ku imaanayo dhankaas. sidoo kale sheekooyin kala soo qaadan karna waxaa qaybka ah saaxiibada qiimaha Edison Cavani wakiilkiisa ayaa la hadlay journalista caanka lagu magacaabo Ekram Konor, wuxuuna u xaqiijiyay in dabcan 4 kooxood oo Spanish ah ee dalab u soo direen kuwaasoo kale ah Real Sociedad, Athletic Madrid, Villarreal iyo Sevilla. wuxuu dooran doonaa mid kamid ah kooxahan sababtoo Cavani xiise gaar wuxuu u qabaa ka ciyaarista dhankaasi La Liga Spain asagoo hore kaga soo ciyaaray Italian Serie A, French Ligue 1 iyo English Premier League kadib markii qandaraaskiisii kooxda Man United uu soo ilaaday. ciyaaryahankana si bilaash ay ugu biireen 4 kooxood midkood. dhinaca kale kubad sameeyaha kooxda Manchester City Kevin De Bruyne ayaa soo dhaweeyay dabcan kooxiisa inay soo qaadata Haaland, wuxuuna yiraahday waa ciyaaryahankii City in muddo baadi goob ugu jirtay. Kevin De Bruyne wuxuu sheegay City awoodeeda haatan 100% dhameystirantahay. sidoo kale wuxuu sheegay tan iyo markii kun Aguero kooxda uu ka tagay inay jirto firaaq ku aadan yaa qaadan kara mas'uuliyadda goolasha. sidaa darteed wuxuu xaqiijiyay Kevin De Bruyne number 9 ku habboonaa 100% City inuu imaaday kooxdana awoodeeda sare u qaadi karo. ciyaaryahankan City waxay kusoo qaateen 63 milyan doolarka Mareykanka ama 51 milyan oo lacagta pound ah. waxaana lagu wadaa 1 July inuu imaado garoonka Itixaad, waxayna ka soo qaateen kooxda Borussia Dortmund asigoo kamid ah weeraryahanada caalamka ugu teeda wanaagsan. marka Kevin wuxuu leeyahay City halkan boos ka dhinaa way dhameystiran hubanti ahaan. wuxuu leeyahay Haaland wax weyn ayuu kooxdan u qaban doonaa. ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan sheekooyinka transferkan soo qaadan karna waxaa qaybka Sergio Gnabry ayaa sheegay asigii Robert Lewandowski FC Barmojan arrimo dhaqaale inaysan kaga tageen maadaama labadan xidig qandaraasyada kula jiraan Bayern ay ku eegeen xagaaga nagu soo fool leh. Gnabry wuxuu leeyahay waxaan u baahanay isbedel naadi. guusha FC Barmojan waa ka daalanay ka soo muuqashada Bundesliga Jarmalka ayuu ka dhawaajiyay. warkaas waxaa loo fahmay ciyaaraankan garbaha ka duulay ee Jarmalka ah in dabcan uu ka soo tagi doono Bundesliga Jarmalka. qandaraaskiisana waxaa ka harsan 12 bilood oo qura xilli ay baadi goob ugu jiraan Liverpool, Real Madrid iyo naadiyo kala duwan halka Robert Lewandowski asagana qalqaalo xoogan ugu jirto naadiga Barcelona. marka Gnabry wuxuu leeyahay aniga Lewandowski waan ka tageynaa Bayern arrimo dhaqaale ma kaga tageynaa laakiin isbedel naadiyan u baahannahay. guud ahaan barnaamijkan Live Transfer Update
intaasaan kusoo celinana waxaa idinla wadaagaa subaxdii hore ama xilli hore sababtoo xalay ayuu barnaamijka naga baaqday saa darteed marka saaxiibada aad ugu xiran awgeed ayaan aroortii hore subaxan jimcada usoo duuba barnaamijkan live transfer update si aan kaga gaarsiiyo sheekooyinka ugu dambeeya 24 saac lasoo dhaafay arrimaha xanta suuqa Yurub ku aadan waa ku mahadsantihiin daawashadiina haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu